رب العالمين horta marka hore waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa magaalada wadamada ka qayb galay saxaas Ethiopia iyo DB World ay Imaaraadku leeyihiin iyo Soomaaliya waxaan baleenayaa waa talaabo aad iyo aad u soo dhaweynayno waxa halka ka muuqata arrimo badan waxa ka muuqata in Soomaaliland ay noqotay dal la aamini karo oo la isku haleyn karo oo heshiis geli kara oo la maalgashan karo ka dhalatay waxa ka baratay wadamada IGAD amba Horn of Africa halkii colaad u dhaxan jirtay inaynu cooperation wada qabsi iyo magaalada integration economic integration oo bilaabmay beyond the crisis marka waxaan naga dhamaaday Soomaaliya hagaagta daalayraho heshiiskani waa heshiis Soomaaliya sharci u leedahay heshiis hore badan adduunka la gashay waa de facto state waxa heshiiskan Soomaaliya dowladda Soomaaliya iska aan magaca waxaan ku heshiinay markaan ahayn wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya 2013 Istanbul in wadan kasta uu xaq u leeyahay wixiisa inuu horumarkiisa samaysto taas waa tilay nagu sameeyay special arrangement-ka Somali Compact mashruuc loo oran jiray madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha hore Xasan Sheekh labada madaxweyne horeba waxay ku wada shireen 2014 December Djibouti lagu heshiiyeen wixii horumara aan magaalada aan qolka xaq u leedahay marka waxaan taasoo inay dhex taalay marka ninkan iska hadlaya de kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayr waxa weeye waa mid iska daa Soomaaliland Soomaaliya horta wax la yiraahdo oo federal government ma jirto waa magac la sameeyay oo lagu qabsado doonayaan shabaabtan lagu la dagaalamo khayraadka Soomaalina lagu qaato hadduu naf leeyahay saddex gobol oo Jubaland la baxay ayuu Axmed Madow isku dubaritay oo xaq u lahayn hadduu xaq naf leeyahay dekada Boosaaso عبد الولي قاس سوى له حنا دولة ريجنال ستيت أيو سي إندبندنت أو استعمالها ما واحد سومالي تراها أبا كوين كيرجع إلو كوين يقول سود ده عبد الولي وكبقى هنا كان هو ماستر كيس هوري ما وقتي ما قال حوي كان الدلاليس بالو شاغي أو سومالي قاس أن أويل كومباني هو اللي عرفت ده تريبا ما هو تشوي ماشي ما كي أنت دعيسو دلال الإسلام تاس ما كانوا يقولون أجنها ما أنت الصومالية وحن دولد له شيء وحق عنك وهي أحمد مذوبي فرماتشو يا أحمد يا عبد الولي قاس ما فرماتشو لما عاملنا سرعت ما يدورون وحليه ولا يدورتي صومالي دورتوا هي يكون حتى دورنا ولا ما عاوي ما قام الحين فرماتشو إن شاء الله تعالى كول حريرنا إنه وحن لقبه دلالكن يدي إنه يسوق كوبنتاي لكن waxaan inuu isagu kooban tahay laakiin waxaan sheegaynaa inaan ka talin karin sayidna tayar magalan saayid Soomaali Bantugi ee wasiirka dekedaha ya kama berbera kama talin karaan waa qaladkan saxayno ee 60 kii dhacay inta la dalkeega waxaan aqooniba oo ka hadlo waxaan kale inuu sheegaynaa shacabka Soomaaliland wasiir kharijiya Djibouti oo aragteen halku istaagay marka hadaba ragii dadkii kala saar waayay gacalka iyo qaranka taasoo inoo markaas falay Djibouti ay tahay marka abjaash waxa leeyahay dabaasha qaranka iyo siidinimadu meel noo wada galaan qaranka ayaan ka muhiimsan muddo gudoomiye waxa hadda wasiirka arrimaha dibadda wuxuu taageeray dawladda federaalka joojintaas ay sheegtay inaanu sharci darro tahay heshiiskaas waxaan leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya wadahadalada Djibouti bay ku kulmayaan yani caqabad ku noqon karin sisa dhaxsida uga noqon karta wadahadalada Soomaaliland waa tan ogaanaya waxaan la kulmi lahaa farmaajo madaxweynaha ya dadkii wax ku jiray ma ogtahay anoo ninkan awsla hadiis ku qaadan meena awska iibin jiray kuwa waan isaga eegina hadii la ilaaho inuu waxaan la qabiyeen kalo markaas soo talaba qaadina inaan kala qayb galno Djibouti waxaan weydiin
qoladii daafacaysay lahaa faysal dheemaal buu qaatay kaayaga baasboor qaatay maanta kala caddaatay maogtahay iyo macawiso maogtahay marka iyagana kaasna waanu eegaynaa waanu ka tashanaynaa oo tegayna madaxweynaha cabdiraxmaan waa is arkaynaa mowqif midaysan baanu ka gaadhaynaa mowqif midaysan lakin waxaa idiin sheegaya waxa ogaataan cadaawadda idiin qaban madaxda halkaas ee fashilantay laakiin shacbigaa magaarta uu ka soo jeeda ninkaasi waa beelcee beesha habariya hawiya la idhaha annagu xumaan uma qabno isagay arrintu ku koobantay isagay ku koobantay wax dowlad la idhaha somaliland federal government ma jirto waa lagu macaamiliyo soomaali lagu baabiinayo oo dhalinyarta lagula dagaalamayo khayraadka lagu guranayo laakiin wax dowladda halkaa kama jirto soomaaliya laba wadan bay ka tahay somaliland iyo soomaaliya tani waa jirtaa somaliland waa jirtaa waa adduunka la macaamishaa lakin wax soomaaliya ma jiro degimo qor ma haysto ma tegi kara xalane kismaayo wax uga dhow huura uga dhow oo kenya gacanta ku haysa berbere muxuu ka yaqaana waxa weeye waa nin iska laabkacay laakiin shacbigaana waxba uu sheegay min hawiyaha la yidhaho shacbigii aan wanaag naga dhexeeyo wixii waa qabaa'il qabiilka juba haysta ka baydhaba haysta ka bajeertiya haysta ka golaha dhexa haysta west government dowladnimeeda shuruudii dowladnimeeda ma jirto inagu baa dowladda federaalka haye dowladda qabaa'ilka ku qora weligiin ha qorin dowladda ku qorina ha ku qorin inaga waa boormoodgani waxaan jirin marka waynu insha allahu tacaala waynu arrinteen waa dhammaysanaynaa laakiin keena xun waxaa ka xunkaasi ka inaga inagu jira ilahay kala garayna gacalka iyo qaranka iyo magaranaysaa sharafta iyo dowladnimo kala garayna martida jecel inuu marti noqdo baasaboor martiyo uu qaad martiyo uu macawisa martiyo kaa la hadla mudane gudoomiye marka laga tago isdifaacidda somaliland soomaaliya adigu siyaasi baa tahay waxbaad magaranaysaa sii ogaan kartaa miyaad u malaynaysaa khatar inay somaliland kaga soo socoto soomaaliya maxay khatar haysaa baarlamaanka kale waxaa la hadal hayaa inay warma baarlamaan ba jira oo ay cunaqabatayn saari doonaan yaa qidiga wax weyn ka dhigaya maxay jiraan deer wax weyn jira ma jiro baarlamaan ma jiro shakhsiyaad la laga soo waray qaar inaga xitaa ku jira ma baarlamaan ma jiro dowlad ma jirto maxaa maba jiraan ma awood bay leeyihiin maanta Ethiopia isku hortaagan ma awood ay isku hortaagaan imaaraadka leeyihiin ma awood Soomaaliland ku leeyihiin ayaa jirta maxay nagu samayn karaan xoog nagama qaadi karaan inaga ciidan badan ma jiraan been aan waxba jirin oo mass media social media ka noolyiin iyo isku tasawira meelahaas iyo kubad dal wadankiisa hagaajisay ka qayb shirkiisa dayaalad ka hayso maanta charter dayaalad buu ka haystay freedom fight layer marka Soomaaliland waxa isku haleynaysa Ethiopia ma anaga isku haleyn waxa amaarin ugu ma ku leeyahay dawladahaas talaba kama qaadi kara inaga talaba inaga qaadi kara muxuu awood ugu leeyahay ka yaray magaranaysaa NGO ka shaqeyn jiray Norwich Refugees and Council ka shaqeyn halkan meel joogay waa daayeer weeyaan kursi aan u qalmin la saaray